dowladda Pakistan ayaa iyaduna ka naxsatay wadanka ay sida weyn isku hayaan una loolamaan ee loo yaqaano Hindiya kadib markay taxaalufka ay la leedahay wadamada kale ay badisay gaar ahaan wadamada caalam islaami. Pakistan ayaa dhawaan heshiis istiraatiiji la gashay dalka Iran sidoo kalena waxay heshiisyadeedii bacaramisay ay la lahayd wadamada ay ka mid tahay Turkiga. Kumanaan ciidamada dalka Turkiga ayaa gaaray wadankaasi isla markaana waxa ay gabi ku dhawaaqeen David Operation ama Aman oo la yiraahdo markaasi ama peace sidoo kalena oo ay sheegtay in 25 dal oo kalena lagu casuumay. Dowladda dalkaasi ayaa sheegtay in ay gaari doonaan ciidankooda ilaa iyo badda waqooyi ee Carbeed the Northern Arabian Sea taasoo ka dhigan in markii ugu horeysay ciidamada dalka Pakistan ay isku kala bixi doonaan Karachi ilaa iyo Arabian Sea sida uu sheegay afayeen u hadlay hanaanka dhinaca ciidanka ee Rawalpindi ee taliska heerka sare ayaa sheegay in iyadoo bari ugu dameeyay Britain dhinaca hubka uu imaanayay una dhaxeeyay loolankaasi wadamada Hindiya iyo Pakistan ayaa dowladda Pakistan waxa ay haatan quudareynaysaa inay adkayso cilaaqaadka wanaagsan ee la leedahay wadamada caalam islaami kadib markii la sheegay in dalka midnimadiisu ay ku timid khalkhal aad u xoogan oo dowladda lagu eedeeyay inay wadamada shisheeye ay u tahay maqaarsaar hase yeeshee dowladda taliska ciidanka qalabka sida ay dusha ka ilaaliyaan ee reer Sharif ayaa sheegay in ay gabi ahaanba 60 dal ay casuuntay kuwaasoo ka qayb qaadan doona howlgalka Pakistan ay hogaami doonto wadamadaas ayaa la sheegay inay ku jiraan 57 dal ee caalam islaami 25 kamidana waxay ka qayb qaadan doonaan dabrid toosa waxayna noqon doontaa ayaa la yiri kii ugu weynaa uguna balaadnaa 7 bisha Febraayo ilaa 11 bisha ayuuna ka bilaaban doonaa aagagaas. Dowladda Pakistan waxay aaminsan tahay inay tani tahay qorshayaasha wax ku oolka ah ee lagu doonayo ugu dambeyn in lagu yareeyo waxay ugu yeedhay in wadamada qaarkood ay isku maleeyaan in iyagu casreynta leeyihiin. Dowladda Hindiya ayaa bari ugu dambeeyay oo waxay ku handadaysay Pakistan inay ka horumartay gaar ahaan barnaamijyada qaarkood ay noqdeen kuwo aad iyo aad u balaaran. Ka gaandiro ordawashana qiimaha badan wararka wacala dhinaca diblomaasiyadda caalamka oo idil si kasta iyo meel kasta oo aad naga maqlaso. Ra'iisul wasaaraha markaasi xilka ka sii degayay ee dalkaasi Lebanon Najib Mikati ayaa sheegay in dowladdiisu ay mar kale ogolaatay in ay heshiis la gasho Israa'iil isla markaana wuxuu sheegay in ilaa iyo inta golaha wasiirada laga ansixinayo xabad joojinta ay soo jeedisay dowladda Mareykanka ilaa iyo 18 February ay sii socod doonto wuxuu ku tilmaamay hanaan aad u wanaagsan. Wuxuu sheegay in qalalaasaha ciidanka Israa'iil ee dhinaca koonfureed ee webiga Litani laga baaqsan karo inuu gacan ka hadal isku bedelo iyadoo ciidanka Xisbullah ay hanjabayaan. Ninka taliyaha ciidanka qalabka sida ee wadankaasi ahaa ee wadankaasi burburay ee isagana Carabta burburisay ee Suudaan waxaan maqan jiray adigu is eerso cid kala eersan Carabta oo inay iyadu seersata iyo muslimkuba ayaga dhibaatooyin isugu filan ayagana isugu wacan ayaa waxa uu booqday xaruntii ugu weyneed ee laga qabsaday ciidanka RSF isagoo ku tilmaamay in gabi ahaanba xaaladaha ay ciidankiisu maanta ku jiraan ay tahay kuwa aad u wanaagsan. General Abdul Fattah al-Burhani ayaa ciidanka waxa uu sheegay in ay qabsadeen xaruntii ugu weyneed ee magaalada loo yaqaan Umdurman iyo qaybo kamid ah magaalada ay la tahay mataanta caasimadda Khartoum ee saaran webiga dhinaca markaasi galbeed daanta galbeed ee webiga Niilka taasoo loo arki karay mid istiraatiiji ah. Waxa uu ku tilmaamay in xarunta Umdurman iyo xarunta Bahri ee ciidanku ay la wareegeen saacadii ugu dambeeyay lagana saaray ciidanka RSF ee Rapid Support Force RSF ee muujinaysa guul aad u xoogan. Dhanka kalena hanaanka ciidanka aag loo yaqaan The Signal Corps in Khartoum Northern ama North Khartoum iyo waliba ciidanka taliska dhexe ee aagaasi ka jiray ayaa waxay u egtay mid ay si aad u xoogan ciidanku u burburiyeen hanaankaasi. Bishii Agosto 2023 ayaa ciidanka wadankaasi ay qabsadeen aagagaas oo dhan taasina waxay ku qasabtay in Burhani iyo kooxdiisa ay u cararaan dhinaca magaalada badda cas saaran ee Buurta Suudaan. Wararka ayaa sheegaya in wadankaasi Suudaan laga yaabo in xaaladiisu ay soo rayso haddii lagu kala adkaado laakiinse dad yar ayaa rajo ka qaba in la gaari doono hanaanka sifaynta oo laga saari doono Maxamed Hamdan tan iyo inta uu taageerada Xameeti uu ka helayo wadanka isku tagay Imaaraadka Carabta oo hub iyo saanad aad u xoogan ku soo qubaya wadankaasi Suudaan lama garanayo ujeedooyinka ay kala yihiin burburinta wadamada caalami islaami isku tagay Imaaraadka Carabta. Basalel Stomriq wasiirka wasaaradda maaliyadda ee nidaamka sanooniyada Israa'iil ayaa sheegay inuu amaanayo go'aanka madaxweynaha Mareykanka Trump oo uu sheegay in gabi ahaanba 76 sanadood ay ugu dambeeyay oo dhammaanba dadka qasad degan ay yihiin dad argagixisa in markan la joogo waqtigii laga rari lahaa. Wuxuu amaanay go'aanka Trump wuxuuna ku tilmaamay in sida ugu rasaha badan ra'iisul wasaare Netanyahu iyo isagu ay soo horumari doonaan qorshe golaha wasiirada laga meel mariyo kaasoo lagu daabulo dadka reer Falastiin loogana raro halkaasi. Wuxuuna sheegay inay u fiican tahay iyaguna inay nolol meel kale ka raadsadaan argagixisnimadooda meel kale la aadaan. Wuxuuna sheegay dhulkan inay yihiin dhulkii kutubta ugu qornaayeen Israa'iil si daraaddeed Israa'iil ay soo cesho doonto dhulkeeda. Qorshaha weyn Israa'iil Greater Israa'iil ayuu ku sheegay in ay tahay barbalowgiisa iyo meesha laga bilaabi karo laga unka doono. Dabadeedna markaa kadib la raadi doono dhulka kaga maqan Suuriya ilaa iyo Dimashq la isku xuli doono ilaa iyo markaas lama deegaanka Sinai. Wuxuu ku tilmaamay qorshe aan midka ugu wanaagsan ee lagu meel mari doono hanaan aad u xoogan ayuu oo wanaagsan oo markaasi ugu dambeyn keeni doono ayuu qorshe